ayadoo maalmahan ay ka jireen xeebaha Soomaaliya dabaylo xoogan oo saameeyay iskaashatooyinka kalluumaysatada ee ka jalaabta badda ayaa waxaa kawaanka kalluunka degmada Xamarweyn ee gobolka Banaadir lagu iibiyo kalluunka noocyadiisa kala duwan laga dareemayaa kalluun yari iyo sare u kac ku yimid qiimaha la kala iibsado kalluunka. Arrintan ayaa loo sababaynayaa dabaylo xoogan oo ka kacay gudaha badda taasi oo keentay in doomaha ka jalaabta xeebaha Soomaaliya ay gaari waayaan meelaha laga soo jalaabta kalluunka. Sidoo kale iskaashatada kalluumaysatada Soomaaliyeed ay mararka qaar kala kulmaan gudaha badda dhibaatooyin ay u geystaan doomaha iyo maraakiibta shisheeye ee sida sharci darrada ugu kalluumaysta xeebaha Soomaaliya. Qaar ka mid ah shacabka iyo ganacsatada ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelatay sare u kaca ku yimid kalluunka. والله هذا سديس بوعنا وحوي وان إنيس وسير وان خلصيني وان يريه ملاك أيام تام وحبسوا كرداعي بدأ دبشة حنفر سري جيلا جيرو دموجا بنام بحر والله أنا وحنا الله سببتكم ما يسوى وحكينا كرتو دبشة هذا حين وحلو جراح حفر دوارت معنا سواحدي وام جبري حفر صوبوه جينجة بوجس دبشة صار معنا بدي وقصن تسلم يا كجرو وحن جعلنا مركب بط مركب حوالي دبشة كدكتو دكتو أم الدولة أولا له سينقولي أوراسا وإلما الكوكر سلام إنه بط أصبر واقع نيلو إلا كثير وبطينا دبشة لا يدجو والله قيمة هوري قيمة هذا وحندي ده وحندي لا قيمة هذا خالصة كيلو جادر كده عمره $1 يوم بينه عمره $3 هداني وحس قيمة من 60 والله قيمة يوم بينه أجر هداي $4 قبل ما خارج جادر كنا أفري برا ما أنت زايد وكعسانة وكيا بملايقة وتضوى ولح وسديت قوى لي ده هاي مركب عبد الله علي محمد ملاي واسكت يا عنده بدأ أقولنا يا عنده دويلة جرتو بدأ دويلة جرتو يبل لو الدور على كذا هذا اللح دور شن دور يبر على كذا بدأ أسكت دعاء ما هذا يا عنده بدأ حن مركا بدأ زائد سعر بر وين أجرا يبل كيل لو الدور على كذا هذا اللح دور على كذا يا والله بدأ دويل جرتا بدأ لو الدور على كذا هذا $6 وكيلة مركب بدأ أسكت دعاء ما دويل يوحى ساجرت هذا دف ملايين واير يا زائد ليتا والله أنا أصدق رواجر والله ملاي وحيا بريان زائد يا أسكت دعاء ما ملاي أو $100 كذا $6 على كذا يا kalluunka wallahi ebel hal tan laba tan ala doomanka wax yar ah keenan 100 kiilo 50 kiilo wax saas ee ma keenan badda wallahi dhinacaan Kismaayo iyo Sulaami ka dhacaya looya badda daweesh waxaasa keenay xilliyada dabaylaha marka la gaaro sanad walba ayaa waxa ay saameyn ku yeelataa kalluumaysatada Soomaaliyeed iyagoo ku waaya naf iyo maalba waxaana sanad walba xilliyadan oo kale ku hanti beela iskaashatooyinka kalluumaysatada Soomaaliyeed Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.